aan raxiin maanta waxaan ka sheekayn doonaa application-kan dhawaanahan dadku inagu wareeriyeen ee la yiraahdo Sweetcorn isla markaana lacag laga sameeyo. Sidee baa looga sameeyaa Sweetcorn-ka lacag? Waa maxay faa'iido intee leeg baa laga sameyn karaa? Wata application-kan Sweetcorn la yiraahdo si aad aragtaan waxa weeye application maaha application-nadan dadku ay lacag ku raadiyaan ambaba dad maxay tahay lacag lagaga qaado ambaba application-na la yiraahdo waxa jira scams ama fish mails oo isla markaana aan jirin oo buga. Application-kan Sweetcorn waa application 15 milyan baa lagu bixiyay waxaana rajaynayaa hadii Ilaahay ka dhigo oo boqolkiiba lagu rajo weeyay si iyaguna shaaciyeen bisha sagaalaad 14keeda ayaa la qabanaya xafladii weyneed ee ahayd lagu shaacinayay in laga dhigo in noqdo application lacagahan caadiga ah ee la isku sarifay cryptocurrency la yiraahdo isla markaana faa'iido badan ayaa laga rajaynayaa marka lacagaw dad badan oo lacag kala baxay way jiraan waxa jira wax loo yaqaan influencer hub waxa weeye waa kaas aniga uu furan yahay in qofku ugu yaraan waxa laga rabaa in uu maxay tolay 30 qof ku ifeed garayo waa habka waxa ku furayaan wax loo yaqaano qaabka lacagta loola baxo ayay ku furayaan influencer hub baa la yiraahdaa wanaag ku dhuftay waa kaas influencer hubkaas ay ku furayaan wuxuu leeyahay qayb lagu guuleysanayo alaab la iibsanayo waxyaabaha kala duwan halka ku aragtaan ayaa qof iibsanaya alaabahaas discount oo ku sameynaya halkan waxaad ka eegaysaa inta maalintii ka shaqeysatay salahan maanta oo gilin hore 4 Sweetcorn baan shaqeystay meelaha kala duwan bay soo galeen 0.0 intaas oo boostiya 1.5 1.70 oo maxay tahay daily reward oo video waxa la daawado waliba gilin hore oo maxay tahay ma dhawa lacagtan haysta daba maxay waa 700 iyo labadaas Sweetcorn weey marka dadku waxay isku khaldaan lacagtii Sweetcorn-ka iyo talaabooyinkan socday maanta waxa weeye 7400 iyo 49 habeenkii baana la siro gareeya balse lacagtu waa tagan ku qoran calaamadda yarna way leedahay isla markaa lacagtu waxa weeye maaha calaamadaas dollarkii bashe bisha sagaalaad waxa la rajaynayaa inay noqoto calaamad dollarka oo kale oo dadku ay ka faa'iideysan doonaan hadii Ilaahay ka dhigo faa'iido badan laga heli doono